بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka na dhageysanaya ama na daawanaya waxaan bilaabeynaa oon halkan idinkaga soo gudbinaynaa casharo taxana ah oo ku saabsan barashada kombiyuutarka. haddaba kombiyuutarku waxa uu leeyahay barnaamijyo badan oo kala duwan oo ay siyaabo gooniya markaas loo barto ayadoo dadka qaarkood ay koorsooyin gaagaaban ay qaataan. haddaba halkan waxaan kusoo gudbinaynaa koorso kaamil ah, koorsadaasi oo lagu magacaabo packages, qeybaha kala duwan ee kombiyuutarka loogu talagalay qofka bilowga ah inuu markaasi barto. barnaamijyada aan ardada usoo gudbinayno waxaa ka mid ah lamber 1 computer fundamentals oo lagu barto bilowga hore ee kombiyuutarka ee qofka bilowga loogu talagalay. window oo asagana ah barnaamij kale oo kombiyuutarka shaqadiisa lagu ogaado. ms word oo laga soo gaabiyey microsoft word, ms excel, ms access, ms powerpoint, ms publisher, internet, email. waxaan ka soo tegay oo halkan looga baahnaa taybin oo barnaamijka ah boobsiiska taybinka lagu barto, iyo barnaamijka ugu dambeeyo oo aanu kusoo gudbinayno photoshop. haddaba barnaamijyadaasi ayaanu taxano ah oo aan ardada iyo dadka kale ee online-ka nagala socdo aan usoo gudbinaynaa. barnaamijyada markuu qofka qaato waxa uu qaataa ICT certificate ayuu markaasi ka qaataa. qofka barnaamijyadan bartana waa qof ka shaqeyn kara xafiis walba oo adduunku yaallo, xafiiskaas haddii dowlad leedahay iyo haddii ay wax ay leedahay ruuxi